kulan wacan wanaagsan qaarta wadana kala socota meel walba joogtaan iyo si walba aad maqlaysaan ku soo dhawaada xogihii ugu dambeeyay ee Itoobiya qodobada wararkeena ugu doorona waxa kamid ah dagaal lagu hoobtay oo ka socda gobolka Tigreega TPLF oo sheegtay inay burburisay 90,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Itoobiya dawladda Eritrea waxay wacad ku martay muddo kooban gudaheed inay gacanta ku dhigi doonto caasimadda deegaanka Tigreega ee Maqale xiisad xoogan ayaa ka taagan magaalada Jigjiga odayaasha dhaqanka ayaa ku baaqay inta ka badan inaan la fiirsan karin Mustafa Cagjar iyo waxyaabaha uu samaynayo iyagoo ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed in ay ka tashadaan aayaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo shacabka waxayna sheegeen inay qaban doonaan kulan weyne degdeg ah oo looga arinsanayo masiirka dawladda deegaanka Soomaalida gabi ahaanba waxaan warkeena ku eegi doonaa xogihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya qodobadaasi oo kuwa kale faahfaahsan ayaan kaga bogan doontaan waxaana stuudiyaha igula sugan saaxiibka daacad oo isha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya daacad waan dhawahay Santago haddii aan ku bilowno dagaaladii ugu dambeeyay dalka Itoobiya meelaha la kala marahayo wada hadaladii u socday Tigreega iyo dawladda federaalka wixii ka soo kordhay iyo sidoo kaleeto hanjabaada ka soo baxday dalka Eritrea ee ah in ay caasimadda Maqale ay qaban doonaan muddo kooban gudaheed bal adoo noo faahfaahinaya noona soo koobaya maxaa u dambeeyay aad baad u mahadsantahay Santago guud ahaan dalka Itoobiya maalinba maalinta ka dambaysa waxaa ka sii daraysa colaadda u dhaxaysa dawladda federaalka Itoobiya iyo falaagada TPLF iyo dhinacyada kala taageersan dagaalku wuxuu galay isbuucii saddexaad dhinacan wallo waxaa la sheegayaa in ay ka bilowdeen dagaalo xoogan agagaarka magaalada Waldiya ciidamadii TPLF ee qabsaday daraad deegaanka Goobiyana waxaa la sheegayaa in xaggaasi ay u soo dhaqaaqeen oo rasaas goos laga maqlahayo deegaankaas iyo nawaaxigiisa dhinaca kale xuduudda dalka Eritrea iyo deegaanka Canfarta dagaalo kooban ayaa maanta ka dhacay ciidamada Eritreana waxay si hulhuleela ugu soo siqahayaan in xuduudda Tigreega uu la wadaago dalka Eritrea iyadoo laga cabsi qabo in halkaasi ay si xoogaystaan colaadaha u dhaxeeya labada dhinac dhinaca kale deegaanka Waqooyi Walqayd iyo Raaya TPLF waxay sheegtay in ay furimahaasi xoojin doonto dhinaca kalena ay burburin doonto ciidamada Itoobiya aagaasi ku sugan iyadoo wacd ku martay in hadda kadib aysan u dulqaadan doonin xaaladda haysata shacabka gobolka Tigreega Santago wada hadaladii u socday dawladda federaalka Itoobiya iyo falaagada TPLF ay dhexdhexaadinayeen dawladda Djibouti midowga Afrika midowga Yurub dawladda Mareykanka iyo hay'ado kale oo caalami ah waxaa la sheegayaa in uu ku dhamaaday fashil iyo sidoo kale wajigabax dhinaca kalena TPLF qorshihii ay lahayd ee ahaa in beesha caalamka ay maqashiiso in ay diyaar u tahay xabad joojin in ay waxa weeye ku guuleysatay dhinaca kalena hadda ay isu diyaarinayso inay dagaal ku qaado ciidamada militariga Itoobiya laakiin dhinaca kalena waxaa la sheegayaa in laftigoodu uu soo gaaray jab xoogan oo waxa weeye aysan ka soo kaban karin ayna ku waayeen kumanaan ka tirsan ciidamadii TPLF ee waxa weeye lagu dhaaran jiray iyo saraakiishoodii ciidamada Itoobiya duqaymihii ay ka geysanayeen magaalada Maqale iyo deegaanada kale gobolka Tigreega waxaa la sheegayaa saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka TPLF in lagu laayay ama waxa weeye lagu gumaaday oo jab weyn uu soo gaaray dhinaca kale waxaa la sheegayaa isla TPLF taasi in deegaankooda ay ka jirto cunno yaraan shidaal la'aan iyo sidoo kale xaalad cakiran oo iska horimaada oo aan u saamaxaynin in ama ay sidan ku sii jiraan haday dagaal qaadaan ay u muuqato in aysan guul weyn ka gaari doonin dhinaca dawladda federaalka Itoobiya tabar iyo taagba hadda waa ay beeshay waxayna isku halaynaysaa oo kaliya dawladda Eritrea oo iyadu garab weyn siinayso dhinaca kalena aad waxa weeye isha ugu garab taagan dagaalkan lagu la jira falaagada TPLF dhinaca TPLF Getachew Reda oo maanta hadlay waxa uu sheegay inay burburiyeen in ka badan 90,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada militariga dalka Itoobiya dhinaca kalena ay gacanta ku dhigeen ciidankaasi hubkoodii iyo wixii saad iyo sanaad ahaa ay gacanta ku haysteen waxa uu sheegay in guul weyn ay ka gaadheen dagaaladii socday balse barbarka kale Santago guusha Getachew Reda waxa daba taagan in ciidamada Eritrea maalmahan dagaalka ay guul ka gaadheen oo ay la wareegeen magaalada Shire taas Shareero aan idhaahde taana ay shaaciyeen isla TPLF latigooda marka guusha ay sheegan hayaan iyo sidoo kale la wareegida magaalada Shareero laba arrimood oo isdul saaran weeye waxa ka soo bixi doona aan la ogeyn dhinaca kale waxay sheegeen inay qabteen saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada militariga dalka Eritrea iyo sidoo kale saraakiil caan ka ah dalkaasi iyagoo isbuuc ka horna soo bandhigay sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada dalka Eritrea isku soo duuduba xaalka dalka Itoobiya waxaad moodaa in maalinba maalinta ka dambaysa uu sii galayo mugdi iyo mustaqbal la'aan dhinaca kalena uu cagta sii saarayo wadada burburka maadaama labada xukuumadood ee Maqale iyo Addis Ababa ay awoodooda iyo tabartooda isu adeegsanayaan saaxiibana ay raadsanayaan dhinaca kale Santago waxa xusid mudan
in dowladda Ethiopia markii TPLF ay ku dhawaaqday xabad joojinta in aysan bataatanba ka hadlin oo ay ka gaabsatay dhinaca kalena aysan ka saarin liiska argagixisada iyadoo wasiirka nabadda Ethiopia uu sheegay in TPLF looga baahan yahay inay hubka dhigis samayso sidoo kalena aan loo dulqaadan doonin in wada hadal la sii galo halka xisbiyada amxaarada maamulka deegaanka amxaarada iyo sidoo kale dadka sida weyn uga soo horjeeda TPLF ay ku baaqayeen in TPLF hubka dhigis lagu sameeyo madaxdoodana la siiyo sheegeen waxa weeye hanaan ay ku noolaan karaan ama nabadgelyo taana TPLF xaggeeda in aysan usoo janjeeraynin ama aysan usoo noqonaynin ayay u muuqataa xagga kale ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed oo safar ku marahayay dalka Djibouti maalmihii hadda inoogu dambeeyay oo ay la socdeen Aadan Faarax oo madaxa xarunta dhexe Eganyo Tashagur oo madaxa golaha Federationka Ethiopia wasiirkii hore waxa weeye xarunta dhexe ahna xubin sare oo ka tirsan qoomiyadda amxarada waxa la sheegay qorshe lagu doonayay in lagu dhexdhexaadiyo ama waan loogu sameeyo in aan wax guul laga gaadhin dhinaca kalena maanta waxa uu la kulmay mid ka mid taajiriinta dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyadoo oo ilo xogogaal ama waxa weeye xogo hoose ay sheegayaan in Abiy Ahmed uu kala hadlay in dowladda Ethiopia laga taageero arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale in dowladda Imaaraadka Carabta ay siiso diyaaradihii loo yaqaanay drone-ka ama Bayraktar TB2 ee horay gacanteeda u soo galay markaad fiiriso xaaladda guud ee dalka Ethiopia iyo meesha ay ku socoto dhabtii mid la saadaalin karo Santiago ma aha waxaa la sheegay wada hadallada intii lagu guda jiray in dowladda federaalku ama aan dhahnay dhinaca Tigreego ay soo hadal qaadeen in ciidamada Eritrea marka koobaad horta laga saaro gudaha deegaanka Tigreega dowladda federaalkuna ay diiday qodobka ugu adag ee la isku mari laayahayna uu ka yahay maxaad nooga sheegi kartaa arintaas soo babaxaysa Santiago waxa weeye ciidamadan Eritreanka in badan ayay soo celceliyeen in laga saaro ciidamada Eritrea guud ahaanba gobolka Tigreega iyo dalka Ethiopia si wada hadalku u noqdo mid waxa weeye labada dhinacba ay ku kalsoonaan karaan taana waxa la sheegay TPLF lafteeda inay ku hoos wada takhayaano in ay doonayso markii ciidamada Eritrea ay baxaan in ay dagaal ku bilowdo ciidamada dalka Ethiopia maadaama ay ciidanku la sheegay inay kala qaybsameen inagu ma cadeyn karree dhinaca kalena saraakiishooda ay ku kala jabeen arrimaha dagaalka xaalad iska horimaad iyo qalafsanaan siyaasadeedna ay ka dhex jirto marka TPLF halkaasi ay fursad ka raadinayso halka dowladda federaalka Ethiopia la sheegayo in tabar taag iyo waxa weeye cudud iyo ciidan waxay haysayba maanta ay u aragto jiritaanka kaliya iyo qorshaha u dajisan inuu yahay in ciidamadan Eritrea uu isku badbaadiyay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed marka qodobkaasi wuxuu ka mid noqdayba qodobada masiiriga ee la isku mari laayahay ee labada dhinac mid walba midka kale uu ku eedeynayo ama uu cuskanayo ama uu doonayaba in waxa weeye uu kaga dhigo laf dhuun gashay sifo waxa weeye aan guul looga gaarin dhinaca TPLF waxa la sheegayaa wada hadal baarnaa iyo xabad joojintan inay ka ahayd khayaano ay ku doonaysay in ra'iisul wasaaraha Ethiopia ay ku soo jeediso beesha caalamka deeq bixiyaasha dowladaha waaweyn waxa weeye ismahdiyay sida dowladda Mareykanka oo kale waxa weeye focuskan ay saaraan oo la dhaho ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed diyaar oo ma aha in uu wada hadal ka gala xaaladda qalafsan ee ka taagan dalka Ethiopia sidoo kalena waxa weeye arrimahaasi marka la fiiriyo Santiago waxay u muuqataa in labada dhinac midka kale uu waxa weeye boqnaha iyo xagasha uu ka goynhayo oo uu doonayo in uu si fudud kaga guuleysto haddii aynu ku dhaafno xiisada ka taagan gudaha dalka Ethiopia iyo dagaalada xooggan iyo isqabsiga TPLF iyo dowladda federaalka u dhaxeeya in wixii ka soo kordha wadayaal dib ayaan idinka soo korbi doonaa dhinaca kalena dowlad deegaanka Soomaalida waxa maalmihii ugu dambeysay ba soo shacbacaysay cabashooyin ay shacabka qabaan iyo sidoo kale to ismariwaa siyaasadeed oo ka taagan gudaha magaalada Jigjiga iyo gabi ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida waxa dhinaca kale ta iyadana socday dagaal xooggan oo ka socday deegaanada ay canfartu weerarka tooska ku hayeen ee degmooyinka dadka rayidka ee ku sugan ay ciidamada canfartu ay iyagana xasuuqayeen isla markaana lagu dhaliilahayay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida inuusan gacan ka geysan isla markaana uusan garab istaagin shacabka ku dhiban degmooyinka gobolka galbeedka gobolka City dhinaca kale to ilaa xalay ilaa maanta iyadana waxa taagnaa xiisad xooggan oo odayaasha magaalada Jigjiga iyo beelaha daga gobolka Faafan ay qabeen taasi oo ay ku soo bandhigahayeen adkaartooda iyo waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin iyo xaaladaha cakiran ee ka taagan gudaha dowlad deegaanka Soomaalida waxaana mar labaad su'aal ka weydiiyay saaxiibkay Daacad oo wali ula sugan studio Daacadow xagga dowlad deegaanka Soomaalida xaaladaha qalafsan ayaa ka taagnaa maalmihii ugu dambeysayba madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida cabashooyin iyo sidoo kale tabashooyin laga qabo ayayna shacabka soo shacbaxaysan waxaana la sheegay inay taasi hadda cirka isku soo shareystay bal xiisada magaalada Jigjiga ka taagan maxay tahay
santagow aad baad u mahadsan tahay. guud ahaan dowlad deegaanka soomaalida waxa uu iskaga jiray xaalad qaabo qowsayn ah sanadkii hadda u dambeeyey kadib markii canfartu ay soo weerartay gobolka city ayna xasuuqday kumanaan ka tirsan shacabka dowlad deegaanka soomaalida. dhinaca kalena ciidamo liyu boolisa ay ilaa iyo hadda gacanta ku hayso oo gacantooda ay ku jiraan. dhinaca kale weeraradii al-shabaab ay ku soo qaaday xuduudda dowlad deegaanka soomaalida uu la leeyahay gobolka afdheer, gobolka shabeelle iyo hadda oo la sheegayaba in ay ku sugan yihiin degmada ceelkari. xaaladaha guud ee ka taagan dowlad deegaanka soomaalida ayay qayb ka ahaayeen. arrimahaasoo dhan marka la fiiriyo ama laga yimaadaba xukuumadda dowlad deegaanka soomaalida waxay maareyn weyday, dhinaca kalena xal u raadin weyday xaaladda qallafsan ee ka taagan dowlad deegaanka soomaalida iyo sidii bulshada soomaaliyeed tabashooyinka iyo qayladhaanta ka soo baxaysa xal loogu heli lahaa. haddaba maanta gudaha magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida odayaasha dhaqanka beelaha Jidwaaq iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka ee beesha Ogaadeen iyo Ciise oo ku shiray waxa ay sheegeen in aysan taageersanayn, dhinaca kalena ay kalsoonidii kala noqdeen madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ama Mustafa Cagjar, hadba nin walba iyo suu yaqaane. waxa ay sheegeen in iyaga oo soo qaadanaya maahmaahdii ahayd hooyaday indhala-aantii waxay ku darsatay dadcunnimo, in madaxweynuhu nidaam xumadii iyo sidoo kale qoqobkii bulshada soomaaliyeed uu horay ugu hayay in uu ku darsaday qabyaalad, iska horkeen, nin jeclaysi iyo in golihii wasiirada ee dowlad deegaanka soomaalida oo dhan ka dhexeeyey uu ka dhigay mid ku kooban xaafadooda. dhinaca kalena waxa weeye qabyaalada dowlad deegaanka soomaalida cirka isku shareertay, sidoo kalena uu deegaanka ku hayo caburin, cagajuglayn, bahdilaad iyo gumayn uu ku hayo odayaasha dhaqanka, salaadiinta, ganacsatada iyo cid kasta oo afkaartiisa ka soo horjeedo. taa beddelkeedana waxay sheegeen in ay gogol nabadeed ku dhigahayaan magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida. gogoshaana ay ugu baaqahayaan bulshada soomaaliyeed meel ay joogtaba in ay ka qayb qaataan waxa weeye kulankaasi looga arinsado mustaqbalka bulshada soomaalida iyo jiritaankeeda. dhinaca kalena loo diyaar garoobo sidii la isku dhaafin lahaa ama karkaarka loo weydaarin lahaa xukuumadan fashilantay ee uu hogaaminayo Mustafa Cagjar. dhinaca kalena masiirka bulshada soomaalida khatarta ku ah, sidoo kalena u janjeedho qowmiyadda amxaarada oon u muuqanin mid iyadu taageersan bulshada soomaaliyeed jiritaankeeda iyo aayaheeda, dhinaca kalena aan wax dan aba ka lahayn. odayaashu waxay sheegeen in hadda kadib aan loo dulqaadan karin wax kasta oo ka dhan ah masiirkooda, jiritaankooda, mustaqbalkooda iyo mustaqbalka caruurtooda iyo midda deegaankoodaba. waxayna wacad ku mareen in ay waxa weeye ugu daadan doonaan madaxtooyada magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka soomaalida, ayna Jigjiga ka dhici doonto wixii ka dhacay Sri Lanka iyo sidoo kale Ciraaq. Santagow, odayaashu daacadu adoo noo bayaaminaya ma waxay ka cabanahayaan xasuuqa dadka rayidka lagu xasuuqaya ee galbeedka gobolka City, misane waxay maaragtay ayagu sheegayaan in beelahooda iyo sidoo kaleeto cadaalad aysan ka jirin dhinac habka loo maareeyay ama loo qaybsaday awoodda golaha wasiirada. Santagow, maadaama Soomaalidu ay tahay dad qabiil, hayb iyo waxa weeye qoys inta badan iskaga badan, dhinaca kalena waxa weeye aragtidooda siyaasiga ay salka ku hayso arrimo noocaasi la xidhiidha. inta badan waxaa loo badinhayaa in ay salka ku hayso arrimo saami qaybsi oo waxa weeye dowlad deegaanka soomaalida xaaladda ka taagan. iyo sidoo kale waxaa xusid mudan oo aan saaxiibadeena xasuusinaynaa in habeenkii xalay ahaa magaalada Jigjiga ay ka dhacday isku shaandhayn lagu sameeyey golaha wasiirada, qayb xilkii laga qaaday, qayb xafiiska laga bedelay, qayb xafiisyo aysan iyagu rabin la geeyey. waxaa kaloo soo baxayso taa laftigeedu in kulamadan ay odayaashu wadaan iyo waxa weeye abaabuladan inay ka dambeeyaan xubno ka mid ah golaha wasiirada dowlad deegaanka soomaalida oo ay dhaqaale iyo hantiba ku bixinayaan, dhinaca kalena ay doonayaan in fariintooda siyaasadeed iyo waxa weeye qorshahooda iyo istaraatiijiyadda iyagu ay leeyihiin ay odayaashaasi sii marsadaan. marka kacdoonkan hadda ka bilowday magaalada Jigjiga iyo baaqan ka soo baxay odayaashan dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kale arrimahan soo noqnoqonayay wejiyo badan ayay leedahay oo laguma koobi karo oo keliya arrimo saami ama sidoo kale
arrimo qadiyadda bulshada Soomaaliyeed lagu baadigoobayo. Waxaa xusid mudan Santiago sidoo kale in ciidanka liyu booliska dowladdeegaanka Soomaalida uu ka dhex taagnaa khilaaf xoogan labadii korneyl ee ugu sarreysay ee taliyaha iyo taliyaha ku-xigeenkii waxa weeye Xaaji Tuur iyo sidoo kale Sakariya xilki laga qaaday oo lagu bedelay Gafaydhe iyo sidoo kale Cabdiraxmaan. Dhinaca kale waxaad ogeyd in taliya Daahir Deex uu xilki iska casilay kadib markuu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha, inkastoo markii dambe arrimo yar iyo magacaabis la taliye madaxweynenimo lagu qanciyey. Haddana waxa weeye in weli arrimihii halkeedu ay ka taagan yihiin oo wax isbedel uusan ku imaanin kacdoonka shacabka iyo dareenka arrintaasi ku aadan. Halka dad kale ay ku doodahayaan isku shaandhayntii xalay laga sameeyey magaalada Jigjiga inay ahayd mid qabyaalad iyo sidoo kale nin jeclaysi salka ku haysay, oo madaxweynuhu markuu arkay inuu fashilmay oo uusan sii hogaamin karin bulshada Soomaalida, in hadda uu doonayo in qoyskiisa ama beesha uu ka soo jeedo uu xukunka u badiyo, taa bedelkeedana uu doonayo in uu waxa weeye kursiga ku sii haysto. Balse taasi ma noqon karto sida aan ka soo xiganay bulshada deegaanka mid marmarsiyo noqoto dadka isaga la deegaanka madaxweynuhu ama isku gobolka ka soo jeedaan ama heeb ahaanba uu ka soo jeedo ayaa kuwa maanta ugu neceb, dhinaca kalena u arka in uu khatar ku yahay jiritaankooda iyo sidoo kale waxa weeye aayahooda iyo mustaqbalkooda. Isku soo duuduubo magaalada Jigjiga 4 sano ee Mustafa Xajar waxa weeye mas'uulka ka ah ama uu joogay waxaa hareeyay qabyaalad iyo nin jeclaysi. Sidoo kale waxay ahayd goob waxa weeye bulshada Soomaaliyeed lagu caburiyo tacaddi iyo dhibaato iyo gudnimo loogu geeyo. Odayaal baa suuqa lagu garaacay, gabdho yar baa maryaha suuqa laga dhex jaaxay, meherada lagu xidhay, warbaahin baa lagu xidhay, wariyaal baa waxa weeye isha lagu dhibaateeyay. Dhibaatooyin marka nooc kasta leh iyo waxa weeye bulshada deegaanka Soomaalida guud ahaan iyo magaalada Jigjigaba soo gaaray. Dhulkii Soomaaliyeedna canfar baa la wareegtay, ciidamada liyu booliskana canfar baa gacanta ku haysato. aad iyo aad baad u mahadsantahay. kaasi wuxuu ahaa daacad oo inala falanqeynaya xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka Ethiopia. daawadayaal idinkana waad mahadsantihiin. wixii ka soo kordhay xiisadda magaalada Jigjigana dib ayaan idinka soo gudbin doonaa. tan iyo kulanti dambana waxaan idinka tegaynaa amaana.